asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale daawadayaal kusoo dhowaada qeybtii labaad ee barnaamijkeena barahalyeegan xalqadiisii labaad maanta waxa aynu kusoo qaadan doonaa alfanaan dayax danuurshe. dayax danuurshe waa fanaan soomaaliyeed oo ka dhex caan ah bulshada soomaaliyeed, sidoo kale oo astaanta lamaanayaasha soomaaliyeed iyo rajada gabadh kasta oo soomaaliyeed. daahir maxamuud muuse oo loo yaqaan dayax danuurshe waxa uu ku dhashay gobolka shabeellada dhexe, tuulo hoos timaada oo loo yaqaan jiricisay. dayaxan iftiimiyey fanka soomaaliyeed muddo yar oo kooban ayuu kasoo mudhyidhi xidhmada fanka. mar keliya ayuuna arkay isagoo taagan cidhifka ugu sarreeya fanka soomaalida. inta muruga ciil caashiqaygu madiyahay ma maqanahay ma jooga ma miirkacay ma nagiyahay allahayo marisahal ha ii maxduminin anige muradkayga yeel. sida uu dhowr jeer ka sheegay waraysiyo la yeeshay 2014 ayuu fanka kusoo biiray. waqtigiisii dhallinyarnimadiisii wuxuu la shaqayn jiray hooyadii oo ganacsado ahayd, sidoo kale waxa uu ahaa askari ciidanka booliiska soomaaliya ka tirsanaa, inkastoo uu imika ka tegay askarinimada. sidoo kale hadda wuxuu ka dhex shaqaystaa fanka. keliya fanka kuma koobnaa ee waa mulkiilaha iyo asaasaha dayax stuudio. dayax stuudio ayaa ah shirkada duubta xafladaha iyo aroosyada, waana shirkada u duubtay isaga heesaha. ma maqanahay ma jooga ma miirkacay ma nagiyahay allahayo marisahal ha ii maxduminin anige muradkayga yeel allahayo muradkayga yeel amiin daha allahayo muradkayaga allo. hooyadii iyo faamiligiisa ayuu kasoo maray dhibaato badan waqtigii uu fanka soo gelayay, sida uu ku sheegay waraysi uu aaladda instagram-ka kaga qaaday dhiirigeliye maxamed cumar. haddaba ila dhegeyso isaga oo ka sheekeynaya. oo zaidka u diiday ilaa hadda way ii diidantaa hooyada xilligan aan dayax danuurshe ahay markay ii yimaado oo gurigayga igu soo booqato marka ay laba eray ama laba dharbaxshi ugu dhufato kadib ay hadalkeedii martinimadeedii yacni ay gudataa. laakiin maxaa lahaa ii sheeg markii dambe markaan ku dhagaadegay way ii daysay. marka waxaa dhacday hooyo way ii diiday inaan fanaan noqdo, inaan fanaan ahaado, maxaa yeelay faamilkii oo dhana maxaa lahaa iyadana maxaa lahaa ii sheeg la soo hadlay oo dhaheen sidan xaaladda wiilkan ku jiro macquul ma ahan, waa in laga saaraa fanka. annagana firi iyo farac midna uma lehin fanaan. dadka dee xilligan soo baxay haddana waxyaabaha wada kulmay waxay tahay hadda qof hadduu fanaan hadda noqdo 2000 waa caadi, laakiin markaas ceebay ahayd. haddana ma dhici jirin, ma aysan arki jirin fanaaniin. example dadkeena annagu waxay aaminsanaayeen dadka fanaaniin. dayax danuurshe waxa uu ka mid yahay fanaaniinta tirada yar ee aan heeso talantaali ah la qaadin fanaaniinta dumarka. haddaba waa maxay sababtu? dayax ayaa inoo sheegi doonaa. waxay shaqada ugu hormusiiyeen waxay leedahay waxay tahay waa waxay iyagu aaminsan yihiin. waxay ku leeyihin for example aniga fanaan baa ahay haddaanan gabar fanaanada la heesin seen fanaan u noohay see u noolaan karaa. fanaan baa ahay haddaanan gabar hees ila jirin sidee u noolaan karaa oon u heesi karaa. fanaan baa ahay haddaanan balod isticmaalin sidee u noolaan karaa. fanaan baa ahay haddaan sidaan u dooran u dhaqmin oo aanan 9 saac weynima aanan gurigeyma sidoo kale sidee u noolaan karaa.
marka aniga waxaan isku dayaa markaan ku dhahay aan qof caadi ah inaan wiil caadi ah oo dhalinyaro ah oo maxamed oo kale ah oo cabdi oo kale ah cali oo kale ah sidaas oo kale aan u noolaado waxaan u doonayaa xaaskayga meesha gabadha aniga aan qabo for example dadka dabeecada ilaahay qofka dabeecadu si sax ah u siiyey xaaskaygu way kulkulushahay oo dhaqanka waxay leedahay dadka kulkulul labo way maseer badan tahay saas darteed waana dhalinyaro maxaa yeelo maanta waa gabadhaas quruxda badan oo lama dhihi karo waa islaam weyn oo hadalkeeda oo lagama soo qaadaan waa lama dhihi karo anigoo xaaskaygana xusmaynayo oo example diidan inay maanta qalbigeeda anoo iska dayn karo maxaa yeele waxaani ayadoonan sida caadiyan la yidhaahdo waxaan ilaahay raalli ka ahaan waaye waxaan ilaahay raalli ka ahayn inaan nolosheyda iyo xaaskayga qalbigeeda u xumeeyo anigoo qancinaya ama dadkaas kale ee bulshadaas maxaa yeele bulshadaas shalay waxay barteen anigoo kaligay socdaan oo kaligay heesayaan oo kaligay dhalinyaro ah way barteen maantana magacaan agtooda magac kale oo u baahanahay oo gabar kale inaan inta soo qabto oon la heeso ama gabar kale inaan xila jisho oon dhexda kasoo qabto oo iigu saa'idayo ma jiro oo aanan hadda lahayn marka anoo yalandeyra lawaaye deegiyo maal daraja indiga lawaaye malagii naftalindi yalandeyra lawaaye dayaxa waxa u dhaxday oo uu qabaa xaas lagu magacaabo farxiya waxa uuna dhalay hal gabarh oo lagu magacaabo hodan dayaxa danuurshe waa shakhsiyaadka soomaaliyeed ee dadka ugu badan ku xidhan yihiin dagalka instagram-ka ku dhowaada 700,000 oo qof ayaa ku xidhan akoonkiisa rasmiga ah ee instagram-ka halka xaaskiisa farxiya ay haysato dad gaadhaya 600,000 oo raace gabadhiisa hodan ayaa iyaduna taageerayaal gaadhaya 35,000 ku leh instagram-ka daacadiyo indhacaasha qaba taan ku eegayay sow adiga maha farxiyo dayaxa waxaa la kulmay caqabado iyo dhibaatooyin aanu filayn kadib markuu xaasla noqday sida aflagaado iyo cay uu kala kulmay bulshada soomaaliyeed isaga iyo xaaskiisuba haddana ismuu dhiibin ee wuxuu muujiyey samir iyo dulqaad fara badan oo ka keensatay in ay ka qancaan dadkii faraha badnaa ee markii hore caqabada ku ahaa noloshiisa kadib waqti badan oo uu deelqaaf iyo aflagaadoha cirdi iyo mid karaameedba uu kala kulmiyey bulshada soomaaliyeed ugu dambeyntii dayaxa wuxuu noqday tusaale ay ku meel maraan ama ka duulaan dhalinyarada soomaaliyeed ee u hanqaltaagaya aasaasida qoysa ku guuleysta nolosha dhabta ah dayaxa danuurshe waxa uu tusaale u yahay lamaane kasta oo soomaaliyeed oo nolosha ku guuleystay iskuna fahmay gabadh kasta oo soomaaliyeed waxa ay ku riyootaa in ay nolosha la wadaagto say u karaameeya u koolkooliya una daryeela sida dayax daacadda ugu yahay xaaskiisa farxiya isfahanka kala dambeynta iyo isku dhaganuglaanta qoyskani waa ta ka yeeshay in ay ka duwanaadaan qoysaska kale ee soomaaliyeed jacaylka iyo kalgacaylka aan dhammaadka lahayn ee lamaanahan dayax iyo farxiya waa astaan uu masheerto shaqsi walba oo ku hamiyaya kuna riyoonaya inuu yagleelo qoys cusub astaanta qoyska soomaalida waa dayaxa iyo farxiya kama gayoonayno haddii aynu isnidhaha ka sheekeeya qisooyinkooda ee daawadayaal aynu intaa kusoo gunaanadno qeybtii labaad ee barnaamijka baryahaliyeygan oo aynu maanta kusoo qaadanay dayax danuurshe iyo noloshiisa intaa aynu ku kulmayno qeybta saddexaad ee barnaamijkani waa maxamed cali cadaani oo idin leh isma dhaafno